السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تشاركيغا وان السلامي maanta videogayga waxaan soo diyaariyay conton phrasal verbs ugu isticmaalka badan ee af Ingiriisiga ee aad loo isticmaalo aad u baahantiin inaad garatiin. So let's go hadda videogeena darsigeena bilowno. Waa ogtihiin phrasal verbs yani waxa waaye ficil iyo waxa lagu daray adverb mise preposition. Hadda kadib labadaas kelimadood mise labadaas eray hal macna oo gaar buu leeyahay. So intaas phrasal verb baa jira, intaas phrasal verb oo macna khaas ah macna gaar ah leeyahay ayaa jira. So let's go hadda aan ka hadalno. Midda koobaad freak out. Freak out. She's freaking out. I'm freaking out. Don't freak out. Don't freak out. Don't freak out. I'm freaking out. I'm freaking. maxay la macna tahay? waxay la macna tahay inaad aad u gargagaxdid mise aad u baqdid mise aad xamaas u lahaatid mise aad wax ka baqdid, yani xamaasad ziyaada mise aad inaad wax ugu naxdid mise aad inaad wax ugu baqatid ee la macna tahay freak out. So example kana astafirno, she freaked out when she saw the snake. She freaked out when she saw the snake. yani way argagaxday markay aragtay maska, yani way aad bay u baqday markay aragtay maska. Dada, I'm freaking out. Phrasal verb kana kala waxa waaye stressed out. Stressed out. Who's not stressed out? Who's not? Oh, you stress me out. You're stressing me out. ee la macna tahay walwal aad u badan. Example kana exams stress me out, yani imtixaanaadka aad bay iga walwalinaysaa, aad baan ugu baqaa, aad baan stress ugu dareemaa imtixaanaadka. midda saddexaad waxa waaye break up. break up ee la macna tahay ka tagid. laba qof oo saaxiib ahaa mise laba qof oo isqabay markay kala tagaan, they broke up last week, yani ayaka way kala tageen goorma isbuucii hore. so laba qof markay kala tagaan, We broke up. You broke up with me. And We broke up. Broke up? relationship kooda yani ka baxaan, cilaaqadooda ka baxaan, ay kala tagaan. midda kale waxaa waaye get behind. Oh no. I got behind in the payment. get behind ee la macna tahay inaad wax dib uga dhacdid mise ka dhaahdid ee la macna tahay. example keena istafirino, I got behind in my work. shaqadayda waa ka dib dhacay, yani shaqadayda waan ka dhaahay ee la macna tahay. midda kale waxaa waaye slow down. slow down yani gaabsasho, ishaddigare na wala macna tahay, isdeji ee la macna tahay, gaabso camalna wala macna tahay. masala example keena istafirino, slow down while driving. يعني انت قاري ودد ترتيب أسعو، يعني قابي ما ودد سرعة هذا قابي إلى من هاي جملة ده. مدك لو حاوي fill up يعني بوحي. fill up the bottle. بوحي دلدا بوحي إلى من هاي جملة ده. so fill up إنا وح بوحي ست. pull over يعني إلى من هاي قاريقة دينا وتشوشي. he pulled over the car يعني قاريقة دينا بوتشوشي. cut off ee la macna tahay wax inuu go'mo mise jarmo. example, the phone cut off yani telefoonkii uu go'may uu jarmay ee la macna tahay jumladda. midda kale waxaa waaye lash out ee la macna tahay si xanaaq leh inaad qof ku weerartid oo ku xanaaqdid oo wax ku samaysid camal. masala he lashed out at his friend يعني si xanaaq leh asagana uu weerar buu ku sameeyay saaxiibkiisa ee la macna tahay jumladda. midda kale waxaa waaye storm out yani waxay la macna tahay in si xanaaq leh inaad meel ka baxdid. example keena, she stormed out of the room ee la macna tahay waxay ka baxday qolka iyadoo xanaaqsan. midda kale waxaa waaye blow up يعني aad uga xanaaqin mise aad inaad qof ku qaylisid camal ee la macna tahay laba macne leedahay. so example keena astafirino, he blew up at me yani ee la macna tahay aad buu igu qayliyay mise aad buu iga xanaajiyay ee la macna tahay jumladda. midda kale waxaa waaye smash up ee la macna tahay burburin. they smashed up the car waxay burburiyeen gaariga. and put and smashed everything. midda kale waxaa waaye show off ee la macna tahay bax iska tag. he told me to show off. ii sheegay inaan baxo iska tag wuxuu ugu yiri iska tag ee la macna tahay. midda kale waxaa waaye flip out si xad dhaaf ah u xanaaqid ee la macna tahay.
example keena she flipped out over nothing she flipped out over nothing she flipped out over nothing يعني waxay ka xanaaqday wax aanan istaahilin fall out elimana tahay dhicid they fell out يعني ayaka way dhaceen square up iska bixid elimana tahay lacag ina iska bixisid so example keena istafiirno let's square up the bill aan iska bixino lacagta faatuurada elimana tahay jumlada rip into elimana tahay laba macne leedahay si adag ina wax u bilowdid oo si adag ina u bilowdid oo si fiican ina u bilowdid amal elimana tahay mesela ina wax bilowdid ina sport ka bilowdid mesela mise macnaha kalena waxa waaye canaansado elimana tahay macnaha labaadna waxa waaye canaansado so example kana istafiirino he ripped into his team يعني kooxdiisa buu canaanshaday elimana tahay jumlada macnaha koobaadna aan dhahnay waxaa waa si adag ay si dhaqso ah ina wax u bilowdid masala example kana istafiirino she ripped into her homework as soon as she got home يعني markii guriga imaaday markiiba waxay ka bilowday inay sameyso waajibkeeda homeworkeeda inay sameystay bilowday midda kale waxaa waaye lie into sidoo kale iyadana waxay leedahay tahay si xoog leh inaad canaan qof u canaansatid mise aad canaanisid she lied into him yani asaga si xoog leh bay u canaanatay elimana tahay jumlada phrasal verbkana kale waxaa waaye burst out yani si aanan la filayn ina wax sameysid example keena he burst out laughing يعني si aan la filayn buu qoslay elimana tahay jumlada rise above يعني ina wax laga gudbo example keena rise above the problem elimana tahay يعني ka gudub dhibaatadan ka gudub elimana tahay jumlada zip up inaad jacket mise wax aad xiran tahay inaad kor u qaadid oo u xirtid sida kan aan qabo camal zip up lahaa midda kale waxaa waaye slip on yani inaad si dhaqso ah si sahalsan u xirtid example keena slip on your shoes si dhaqso ah mise markiiba si dhaqso ah kabahaaga xiro elimana tahay jumlada warp up soo gabagaabin elimana tahay example keena let's warm up the meeting aan soo gabagaabino kulankeena throw on elimana tahay inaad si degdeg ah si dhaqso ah ina wax u xiratid example keena he threw on a jacket yani si dhaqso ah jacket buu xirtay elimana tahay jumla giveaway elimana tahay inaad wax iska bixisid mise hadiye ahaan u siisid qof example keena she gave away her clothes yani dharkeeda iska bixisay qof bay u bixisay elimana tahay jumlada pop into elimana tahay si kooban inaad meel u booqashitid oo si dhaqso ah aad geshid kasoo baxdid example keena I popped into the shop يعني si degdeg leh baan dukaanka u galay kasoo baxay waan kasoo baxay si dhaqso ah baan u fiiriyey hadda kadib baan kasoo baxay elimana tahay popped into peel off kasiibid elimana tahay he peeled off his shirt يعني fanaanadiisa iska siibay elimana tahay jumlada come around he came around later markii dambe ayuu go-aankiisa bedelay elimana tahay jumlada came around yani go-aan in la bedelo fikir la bedelo mise sidoo kale waxay lamana tahay inaad meel soo martid came around way lamana tahay macnahana kale uu leeyahay inuu qof fikirkiisa bedelo mise go-aankiisa bedelo mark down qiimo dhamis they marked down the price yani qiimihii wuu jabay elimana tahay jumlada whip up si degdeg leh si dhaqso ah inaa wax u diyaarsatid example keena she whipped up dinner yani si dhaqso ah bee casho u karisay elimana tahay jumlada wolf down si dhaqso ah inaa wax u cuntid si dhaqso ah wax loo cuno example keena
He wolfed down the food. He wolfed down the food. يعني سدخس أب عنتذي أعني. Speed up. Speed up. يعني ددتشين إلى معناتها. Example كنا speed up the process. Speed up the process. يعني هوشة ددتشي. رخصو ددتشي إلى معناتها جملة دا. Pass away. Pass away. إنه قف دينتو أو جيريودو. جيريوديد إلى معناتها. His grandfather passed away. His grandfather passed away. أو جيسا هو جيريودي إلى معناتها جملة دا. Split up. Split up. كلا بحيث كلا تجد إلى معناتها. The group split up. The group split up. يعني جروبكي وكلا تجي إلى معناتها جملة دا. Crank up. Crank up. إلى معناتها كردين. Crank up the music. Crank up the music. يعني عدك كردي فر إلى معناتها. Lift up. Lift up. كر وقاذب. Lift up the box. يعني كر وقاد صندوقة. كر وقاد صندوقة. Rip up. Rip up. تشاحد. He ripped up the paper. يعني ورقة وتشاحي. Sneak in. Sneak in. سقرصون إن ميل وقشد. He sneaked in quietly. سقرصون بأصوغلي إلى معناتها هاي جملة. Squirrel away. إن واحد قريسيد. Example. She squirreled away money. She squirreled away money. يعني لعق قريسي. ميل فوق بيكو قريسي إلى معناتها. اوكي فيديو انتاسو ها waxaan rajaynaa faa'iido ka hesheen. Please like subscribe kayga ilaawina comment kana ra'yigiina ii soo qora. sidoo kale join ku taaban kartiin hadaa rabtiin inaad soo taageertiin. waan islaamis arag dambe iyo video kale iyo darsi kale. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.